Sajaayadani oo ahayd tii ugu weyneed ee gacan lagu sameeyay abid ayaa waxaa naqshadeeyay haween u dhashay dalka Iiraan waxaana lagu soo bandhigay fagaaraha salaada ee dalkaasi si loogu diyaar gareeyo in loo qaado masaajidkii loo tolay sajaayadan oo ku yaala wadanka isku taga Imaaraadka Carabta. Sajaayadan oo baaxadeeda lagu qiyaasay inay gogli karto dhul dhan 6 kiiloomitir oo iskuweer ayaa munaasabadii lagu soo bandhigayay waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin sarsare oo ka socotay dowladda Iiraan iyo waliba diblomaasiyiinta wadamada Islaamka u fadhiya dalkaasi Iiraan. Waxaana halkaasi hadal kooban ka jeediyay wasiirka dhaqanka oo sheegay in baaxadda sajaayadan oo aad u weyn ay mucjiso ku noqotay dunida balse ay tahay hindiso ay Iiraan ku soo kordhisay dunida. Wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in cunaqabataynta dhaqaale ee saaran dalkiisa Iiraan aysan waxba ka bedeli doonin wax soo saarka Iiraan gaar ahaan sajaayadaha rugaga iyo qadiifadaha oo ay Iiraan ugu horeyso farsamadooda dunida. Sajaayadan waxay leedahay 22 bilyan oo barabaro kuwaas oo loogu talagalay in lagu muujiyo fanka Islaamka iyo waliba calaamadaha diiniga waxaana qayb ka mid ah lagu xardhay biyo dahab ah iyo waliba macdan, ayay tiri haweeney ka mid ah haweenkii farsameeyay ee gacantooda ku tolay. Sajaayadan oo noqonaysa tii ugu weyneyd adduunka ayaa waxaa loogu talagalay in lagu goglo masaajidka weyn ee Sheikh Saayid Al Nahyan ee Dubai. Waxaana qaadideeda loo soo kireeyay diyaaradda ugu weyn dunida oo laga leeyahay dalka Ruushka.